kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada waraysigan aanu la yeelanayno hodan cumar dhuule oo ah gabar u dhalay fanaankii weynaa ee soomaaliyeed cumar dhuule ee taariikhda iyo sharaftii karaamada ummad dhexdeeda ku lahaa rabbi ha u raxmadee bal hodan intay ka xasuusato ayaanu wax ka ogaan doonaa iyo weliba dabeecadihiisii gaarka ahaa markuu guriga joogo iyo masraxa ama bulshada dhex jooga dabcan wuu kala duwanaa iyo weliba sida quruxda badnayd ee hodan iyo walaalaheedba usoo barbaariyey waxaa kaloo intaas dheer hodan laftigeeda ayaanu isku dayeynaa inaanu waxyaalo aanu ka ognahay aanu bulshada la wadaagno oo in badanoo idinka ka mida aysan ogeyn balse qosolka ayn ka dhammaan doono caawa haddii ilaahay yidhaahdo marka hore aan soo dhoweeyo hodan cumar dhuule sharaf iyo karaama ii tahay in aad waktigaaga qaaligaana siisay hodan soo dhowow waan dhowahay walaal macaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan idin wada salaamayaa dhammaantiin وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مركو هوري برنامج كان إيه طبعا كلا إيه بقول برنامج إن كبدل منا بكمسو كوبي كرنو نلجن كالصوماليات الله ونحريسي تاريخ نسي لكن وحرمنا بالوحير إنا نكبرنو قفك أو أها بل تاريخ نسي واحد كهيسيد إيه واحد كحسوسيد سولو هذا وندوه ولا هرت ولا أبو أبهاي وحوها شخصي آد وناكسن أدان كرادا عاو هالكنان قصو قادني أنا كم كوب كر لكن وحيرو بانكاغا تاتابنيا عبد حافظو أبهاي وحو فنك كدحلي أوغي دولا علي با فنانها oo aabana uu ka dhaxlay isagoo 13 sano jirana fanka uu kusoo biiray walaalihii hargeysa taasoo ahaydna aabbu wuxuu ahaa fanaankii ugu horeeyay Soomaali ee gabadh matala gabadhi ma jirin wax gabadh la yiraahdo oo fanaanad Soomaali ma jirin walaa koonfur walaa waqooyi marka aabbu ahaa fanaankii ugu horeeyay ee matala gabadh matala adeero alla yaa raxma محمد عبد كل إنه هو يمكن تلجري أكتر مركا يعني قيب وين أيو أب فانكا وكسوقات أيو هلكن لو سكون كرنا عاو وقرتي وحياليه مركو جورج جوجو وإذا المعسكرين يو مسرحي أما فانكي تجيو أما لقاقة شيء أما عضو بعد أكتو حسوستين محاكم ذا waxaa ka mid ahaa cabdixaafid aabbo wuxuu ahaa aabbo awlaad jecel oo maaragtay kaftan badan oo nooga sheekayn jiray marba wuxuu soo maray iyo wuxuu markaa la kulmay iyo ma garanaysaa wuxuu noola sheekaysan jiray ama noola dhaqmi jiray aabbo marna aabbo ahaan marna walaalkeen naga weyn marna adeer ayuu noola dhaqmi jiray aabbo intaasoo hoos ayuu aabbo yacni noo soo geli jiray marba maaragtay oo مو أهين بماركتي عروض الله شاكيسن وحبة وشيء تاسنا أنتي ده أولادي وابري هيد أداري يدبوا وجاين وأولادي سكوا حرقون جريو كحين جريو أنتي هذا السؤال بيستوون بحينا ما تقول عليه ما تقدرنا كأوتجينا عشان عاول كأوتجينا يعني وحنا نقصو كوريين نقول آد وقروح بدن وشعايل له واحترام له مقارنة ساولا يا وقرتي waxa kale oo dadka aadka u yaqaano hobalada waa bari kamid ah qaarkood ay noo sheegeen inuu ahaa shakhsi deeqsiyo oo maanta haddaad wax intaas oo jawaan lacag u dhiibtid qofka u horeeyo siinaya gacan furan qalbi furan buu ahaa waxyaalahaas dadku ma idin sheegeen idinka ها وابن انت بدن وابن arkayo waxaan xasuustaa cabdixaafid oo mar anagoo gaari saaran oo marayna elgaabta anagoo marayna ayaa laba wiilo inamadan yar markaa anuu ma odhanay kala dhuuq yani laba ciyaaladan yar banaanka ayaa islaynayay markaasaan yaabnay markaasuu wuxuu yidhi jooji gaariga inankii gaariga waday buu la hadlo yidhi jooji inankii gaarigii buu joojiyey aabba inamadii oo dhala isu jabsaday buu inama yar yar markaa ayaa dhala isu jabsaday inay isgeliyaan oo dagaalamay aabbahay markaasu intuu dhex galayo kana ka tuuro maxaad isku haysataan markaasuu yidhi lacagteedu iga qaatay markaasuu yidhi mise hayd intaa aabbahay boorsada intuu soo saaray kana intan siiye wiil adna halkaa ka bax waxay la noqotay yacni wax aad iyo aad u maaragtay cajiiba ma garanaysaa naxariista yacni intaa la eg aabbo wuxuu ahaa aad qof u naxariis badan oo hadduu arko qof dhibaataysan hadduu aqoon xitaa
maaragtay isku dayo inuu wax taro nagu soo noo sheegi jiro nagu gawaabin jiray marba haddaad aragtaan qofka ama ha weynaado ama ha yaraado qof dhibaataysan haddaad aragtaan idinkoon dadkana u sheegin idin ogaan buu na odhan jiray aabo waxaad tari kartaan siiya ilaahow bikeeriga biyaha aad adigu markaa cabbaysa hadday tahay xitaa taasuu nagu odhan jiray cabdixaafido naxariis miran buu ahaa aabo waa gartay waxyaalaha kale oo idinku tarabiyeeyey oo in badan ku dadaalay inaad qur-aanka barataan oo maxaa la yidhaahdaa iyo waxbarashada maajigaaba ayuu in badan idinka waaniyo idinkala hadli jiray oo guwaabadiisa ka mid ahayd maxaad ka xasuustaa adigu shaksi ahaan waxaan ka xasuustaa inuu aabbahay odhan jiray qofaan salaad tukanayn horta gurigayga maba joogaya qofaan salaad tukanayn salaanta ma qaadayo qofaan ilaahay isku xidhayn buu odhan jiray aniga waxba iima aha anna waxba uma ihi marka dee waa la yaryaraa waqtigaasoo markaan mararka qaarkood xasuusto alxamdulillahi rabbilcaalamiin waxaan dhahdaa ilaahu aabbahay naxariistii janno ka waraabi yacni wanaagga maanta wanaaggaa shalay uu nagu soo barbaariyey waa waxaanu maanta aan anaguna aan ku dhaqmayno ama carruurteenna aanu farayno ma garanaysaa walaal marka wuxuu odhan jiray waxbarta oo ma garanaysaa idinkoo wax baranaya mujtamaciina ku dhex jira haddana xidhitaanka idinkiiyo ilaahay marnaba yay lumin ayuuna odhan jiray ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya waxaa jira qofku markuu maqaamkaas sare oo kale uu gaaro markuu dadka uu fanka isku iyo saaxiibadii uu la joogo iyo markuu joogo waa laba weeye markaa labada isbarbar dhigtid sawir ka bixisid noocaad ka bixin kartaa islaam aabbahay markuu dadka la dhaqmayo iyo markuu annaga nala joogo waxaan odhan karaa in yar unbaa u yar dhaxaysa intaasoo ah yacni muxubbada uu annagana tusay oo waalid ahaan iyo dadka kale suu ula dhaqmayay mar walba wuxuu dhihi jiray mujtamaca la dhaqankeedu mar walba adoo faraxsan adoo ma garanaysaa aan cadho iyo waxba kaa muuqnayn dadka waa la samaystaa buu aabbahay buu odhan jiray yacni uu annaga dhanba nagu dhihi jiray marka waqtigaa waan yaabi jiray waxaan dhihi jiray see loo samaysanaa dad marka wuxuu ka wadaa yacni wanaag haddaad samayso dee ummadduna walaalo way ku wanaajinaysaa soomaa cabdixaafido marka waxaad naftaada aad u diidayso dadka kalena aabba u diida buu odhan jiray oo yacni ha ku samaynina marka taasna waan uga mahad celinaya aabbaha ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye wanaaggaa maaragtay hadduu masrax taagan yahay iyo hadduu dad badan ku dhex jiriyo hadduu keligii yahayba nin wuxuu iska farxaan oo isagoo cadhaysan aan la arkaynin mar walba isku daya inuu hadduu xitaa soo galo meel yara maaragtay densano xoogaha dadku isku yara wuxuu isku dayi jira aabbahay inuu intuu istaago uu maaragtay dadkii ka qosol siiyo uu bedelo maaragtay wixii lagu jiray markaa ayuu ahaa aabbahay walaal waa gartay dabcan waxaanu ognahay taariikhdiisa buwaagi laga qoro mudan yahay oo maaragtay wax annagu aan soo koobi karna ma ahan dadkii kale oo naga waaweynaa ee la soo cayshay baa weli jooga waana hubaa inay dad fara badan taariikhdiisa inay qoraan iyo inay ka sheekeeyaan bay isku dayi doonaan waxa dhacday aabe in qadar ilaahay u timid uu geeriyooday wixii dabcan kuugu naxdinta badnaayo ku soo maran ay ahayd maxaad geeridiisii ka xasuusataa adigoo mahadsan geeridiisii walaalo aabbo 2 habeen ka hor ayaan anigu aan wada hadalnay oo aabbu wuxuu u soo socday ingiriiska oo uu iman lahaa oon fiisa u helnay marka 2 habeen ka hor aabbo markuu dhiman doono anaa ugu dambeeyey oo aan wada hadalnay maalintii geeridiisa la ii soo sheegayna cabdixaafidow meeshii i go'day yacni ilaa maanta xaqiiqdii walaalo way maaragtay way maran tahay ma garanaysaa oo aabbo maan arag markaan saan uga soo tegey maan ilaahay ismug mar labaad iskumug keen tusin umul baanan ahaa markaa aabba dhimanayay markaa walaalo waxii ugu naxdinta badnaa bay kamid ahay meesha آمين الله سبحانه وتعالى أول رحمته sidoo kale waxaan ognahay 2013 hooyo laftigeedu inay geeriyootay ilaahay subxaana watacaala waxaan uga baryaynaa inuu jannaday fardowsa geeyo dabcan ayadaa ka dambeysay
haddii aabe aan kasoo yaro durugno oo adiga laftigaaga iyo walaalo fara badan oo kale aad leedihiinba aan ka hadalno mee qof buu aabe iyo hooyo ifka kaga tegay ba isleed intaa ogta anagu ilmo cumar dhuul ahaan 19 baan nahay cabdixaafid oo huno laakiin inta badan laakiin inta badan way yara dhinteen hadda waxaa nool adigu dhowr hablood iyo dhowr inamaa nool 19 ma wada noolna walaalo marka dee 3 baan hadda aan kaga jirnaa dhinaca fanka garanaysaa oo inta waqtigan hadda la joogo waqtigan xaadirka ah yani la joogo 3 baan ku jirnaa fanka kaga jirnaa ya agarsi masha Allah waxaa jira fanka maadaama aad soo qaaday awowgaa hore ugu jiray aabba ku jiray adigu aad kusoo barbaartay guri fan aad kusoo barbaartay adigu laftigaagu inaad dariiqaas hadda horey usii qaaday goormaad go'aansatay bal inaad kabihii aabba inkastoo la gashan karin aad isku daydi horta fanku wax naga maqan maaho dee waa wax gurigayagii ma garanaysaa wax profession aan u lahayn baan odhan karaa ma garanaysaa walaal marka aabbana uu nagu guwaabin jirayo ma garanaysaa markuu guriga joogo kaleeto uu noo yeeri jirayo heesa badan buu xitaa naxabadsiiye oo anagoo marshana iyo mar walaalayaal 3 ah markay 3 lahaayeen waa haflii telefishinka Soomaaliya ka heesay aabba gadaal kala heesay marka uu la dhihi jiray aabbo isku daya noo tumi jiray oo ma garanaysaa oo xoog buu noogu guwaabiyey inaan maaragtay fanka marka aniga hodan ahaan 8 jir baan ahaa markaan ka qayb galay anoo dhiganaya iskuulkii Jamaal Cabdinaasir oo saddexe markaan ka qayb galay heestii iigu horeysay uu aabbana ii tumayey ee aan ka qaaday tartankii iskuullada garanaysaa ma xasuustaa hadda heesta haa waan xasuustaa heestaas waxaa la odhan jiray kolley caashaqaygii baa la odhan jiray dee waxa ilaawdiyo waxyaaba aad ilaawi kartiyo waxaanad ilaawi kelin baa jira ma garanaysaa huna marka heestaasa iigu horeysay ayaan ka qaaday iskuulkii dugsiga waa gartay kolley caashaqa iyo saad isku tihiin dib baan uga imaan doonaa haddii la yidhaahdee hodanay waxaa kaloo jira inaad adigu hadda hooyo tahay laftigaagu sharfan 4 caruura waad korisay oo habeen iyo maalin guntiga u xiratay inkastoo dad fara badan oo anigu aan ka mid ahay maraad halkaan noogu timid waxtaan u malaynayay inaad adigu xaas aad tahay oo hadda lagu qabo laakiin markaan waraysigaaga diyaarinay baan dib waxaan ku ogaaday inaan lagu qabinin 4 caruura oo qurbo lagu koriyo arrin sahlan maahan bal noloshaa yar nooga dhac huna horta anugu hooyaan ahay 4 caruur haysata hooyo keligeed baan weliba ahay oo 4 caruura haysata 4 caruur oo qurbo lagu koriyey oo weliba 3 wiil iyo gabadh ah wax sahlan maaha laakiin waxay u baahan tahay adayg iyo dadaal badan ma garanaysaa iyo dee ilaahay subxaana watacaala oo dee kula garab gala ma garanaysaa marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay uu ila garab galay oo cabtida waan korsaday fanka inta badan waxaan uga yara hakanayay oo aan mar walba lugta gadaal uga yara dhigay waagii hore inaan caruurta marka horeeto waxbarashadooda ku dadaalo iyo koriinkooda alxamdulilah markaan arkay inay lugahooda ku istaageen oo maanta maaragtay aan odhan karo sidaa garanaysaa ayaan sin allailahay haddana dhinacan kala balyaro eeg saasay tahayna cabdixaafidow alxamdulilah hooyo keligeedoo caruur 3 wiil iyo inan korisana dee waa iska garanaysa alxamdulilah rabbilcaalamiin aad iyo aad baan kugu hambalyaynaa kuwa yararna ilaahay ha kuu daayo kuwa hana qaado oo dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda anfaca allah kaaga dhigo xaqiiqatan arrin sahlan maaha 2 waalid oo wada jooga inay ilmo ku koriyaan qurbaha iska daa qof keliya oo weliba hooya oo wiilal korinaysa iyo gabadha yar ee quruxda badan maasha allah haddii aanu kusii yaro soconno aan ka hadalno hadda kahor waxaa dhacday in maaragtay tagtay magaalada muqdisho oo si weyn uu kuu soo dhoweeyey guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir ahaana duqa magaalada thaabit cabdi oo shaksi ixtiraam iyo sharaf badan anigu aan shaksiyan u haya ah
bal tegitaankaagaas magaalada Muqdisho iyo soo dhaweyntaas Thabit intaana waxyaalaha kalin bal na xasuusi 2017 horta masha Allah tabarakallah walaalkii Thabit horta waan salaamayaa shakhsi aad u wanaagsan oo Soomaalinimadu ku yahay oo wanaag badan aan kala kulmay weeyaan inta xusulkayga xabaal ka sareeyana anigii intii Umar Duulana waan u hayn doonaa abaalku maalinta noo galay عبد حافظ وانتجي حمر وانتجي وليبا فنانين بان برنامج لوذي ومدو دور بلو صدح بلو جديد يبريو هذني ولا نراع هذني ولا ومركز دبا أن يالنا أن راعي وأنتجي الحمد لله تحمرت وماشي كل شيء يوم قرني سا عبد حافظ أنا حمر بان كل شيء ودي حمرتي أيضا قرنيسة مركها ولا لكن وحن كلا كل ما يوحيابا آد أجيبه أهم قرنيسة ولا waxyaalaha kala kulantay intaan u gudbinin Thabit Cabdi gudoomiye hore ee gobolka Banaadir shakhsi walaal ah gacal ah ku garab istaagay inta badan meelaha fanka iyo xafladaha lagu dhigo laguma arko laakiin markuu gartay inaad tahay in Umar Duule waxaa galay dareen iyo maxaa la dhahaa hididiilo hor leh si hufan oo sharaf leh inuu ku garab galay baa la iigu sheegay uu ku garab istaagay arrintaas intaadan waxyar ka sheekayn waxaan jeclahay gudoomiye hore gobolka Banaadir taariikhda ku xusaysa Thabit Cabdi si fiican baan ku naqaanaa waana xasuusanaa maalintii xasuuqii ummadda Soomaaliyeed ee foosh xumaa u dhacay iyo kaalintaad ka gashay intaad gobolka haysa shaqada qabatayba intaa in ka badan baan ku rajeynaa mustaqbalka dabcan wuu ku garab istaagay xaflad weyn buu kuu dhigay laakiin xafladaas laakiin laguma wada faraxsanayn laguma wada faraxsanayn wixii dhacay adigoon dadkii magacyadooda loo sheegay waad iska garanaysaa barnaamijyadan anigu aan daadihiyo ma jeclin inaan dad magacyadooda sheegno oo aan ceebayno waxaan jecelnahay inaan ceebta dadka asturno maxaa yeelay taadanii baaba faray laakiin arrin fool xun oo waxaa dhacday haybsooc lagugu sameeyo in lagu hor istaaga la isku dayay arrintaasay ku dhacday yaase mas-uul ka ahaa adigoon magacay sheegin fadlan magac ma sheegayo oo dee waxaan horena umaan sheegin laakiin maadaama caawa aynu wada hadlayno huno dadkii fanaaniinta ahaa markaas anigu fanaaniino ma garanayay intaa beryayay ee aan maaragtay idhi okay weeyaan 21 cisho ayaan anigu aan soo qaatay fasax intii iskuulka xidhnaa inaan carruurta qaar aan kasoo yara tegey markaan imi meeshii aan u imi meeshii hawl baa loo yimi markii anu waxaan aqaanaa marka hawl haddii loo yimaado hawsha in la wada qabto aysan hayna dee meeshii lagu kala tago markaan inamadii dhowr mar adigu iyo dumarkay ahaayeenba aan ku iri dee sidan ima wanaagsanay habeenkan la soo jeediyey iyo maalintan la jiifaya iyo meeshii shaqaynu u nimay shaqadeen maxaynu aduu xoogaa way yara dhibsadeen markaa hadallo badan oo na dhex maray kadib waxay yidhahdeen markaan ku yidhi sidaa haddii lagu sii socdo anigu ma diyaaru ma ihi haddaba waan iska noqonayaa ayay walaal cabdixaafido waxay sameeyeen markaa ii hanjabeen oo yidhahdeen halkan waa xamar ma garanaysaa xamarna anaa iskale anagaa iskale isku day haddaad isku dayda xamar inaad wax ka dhigato ya inaan xabad madaxa kaaga dhufanayana igu ballana dee waxay la noqotay wax aad u weyno ma garanaysaa anoo islahaa dee maanta fan kalama kulmi doontid waxyaabahaas iyo wax u egba waan eegay bis markaa waxaan ku yiri okay waynu aragnaa marka dan markaa sidii baan Thabit aan loogu wada xiriirsiiyey deedna ilaahay khayr ha siiye walaal aan aad u jeclahay walaalkay Cabdullaahi Wiish oo ah walaalkii laxmi ah ilaahay khayr ha siiyo aduu hodane aniga waa adeerkay wey waa iga weyn أنا والله عند حافظ وشخص آد وكراميسن وإلهي شرف في العز السيء ويان إن كبا مركا أبو سيدي ويقول صحيح Thabit مركا إلهي إسنا خير هالسيء سيدي بو Thabit مركو أرنتي مقلي
ayuu taabido weli fanaan meel barnaamij ka dhigaya ama fanaan meel weli barnaamij ku sameynaya aan tegin iyo dee gobolkii banaadir markaa intuu taabid ugu sarreeyey ilaa kii ay igu wada yimaadeen habeenkii iyo casho sharaftaas quruxda badan ee taariikhiga ah ma garanaysaa oo igu yiri xamar idinkaa iskale hodanay yaa idina kaama xigto xamar waxyaabihii waxay ahayd igu yaabka badnayd oo mararka qaar xitaa fanka waxyaabaha aan uga hakado fanka ay ka mid tahay ma garanaysaa ama ay u horeysaa fankayga inaan yara hakiyo walaalo haddaba hodan waxaa dhacday sidaanu ognahay in haybsooc iyo hadalla aan qurux badnayn lagugu yiri markaas aabbaha allaha u raxmadee ama qoyskiina si gaara loogu xumaynayey annagoon dadkaas arrimaha ka dambeeya magacyadooda sheeginin maadaama aanan jeclayn dadka ceebahooda inaan qodqodno laakiin tan way cashar u noqonayso marka hore waxay ku yidhaahdeen bal noo dulmar iyo saamayntii adiga kugu yeelata shaksi ahaan cabdixaafidow huno markii ay aan ku iri hawshii halkan loogu yimi aynu qabano soo jeedkan iyo aynu iska dayno aad soo jeedaan habeenkii maalintii oo dhan aad shiiftaan meeshan hawl baan u nimine maadaamana carruurta soo tigaan uma doonay bilaa macno in bil iskaga fadhiya meel ayay ilaa 10 cishaan sugayey markii aan ilaa 10 cisho sugayo weli wax isbedeli jirin ayaan markaa la hadlayo markaan arrintaa u keenayna maaragtay waxay bilaabeen markaa waa kibir badan tahay adiga maxaa dadka isaga weyneyni ana dad iska weyneyd iska maadi anu balwad malihi cabdixaafido walaalo oo maaragtay wax balwada malihi marka balwaduna hadday leeyihiin anugu umaba diidayo laakiin balwadana inay eegaan shaqadii meesha loo yimina aynu qabano ayuu aniga muhiimkaygu ahaa ma garanaysaa marka markaan dee aan sidaa isku aan hadalladaasna dhex mareen oo aan idhi ma islama weyni mana kibir badnin laakiin hawshii aan u niminayna qabano weeyaan ayay markaa yidhahdeen maya saan waay kan aduu hadal yaan kugu daaline markaan hadalla isdhaadhaafsanay laakiin aan xumaan ahayn isdhaadhaafsanay ayay xanaaqeen markaasay igu yidhahdeen halkan waxa waaye xamar annagaa iskale haddaad wax ka dhigtana dhegtaas ii dur weliba xabadkuu ii garaacday mid kamid ihi ma garanaysaa oo xabaada waan iska cafiyeye adigu halkaa xabadka halkaasuu intuu gacantiisa ku qaraacay buu igu yiri halkani waa xamar anaana leh buu igu yiri haddaad bal aad yani aad awood leedahay hodan cumaray bal xamar ku dhigo ani marka waxay la noqotay waxyaabihii wixii igu weynaa noloshayda intaan aan waalidkii kasoo maqnaa iyo intaan fanaaniin lasoo shaqeeyey waa beri waan lasoo shaqeeyey kuwan kale waan lasoo shaqeeyey yani waxay ii noqotay wax weyn oo ma garanaysaa maa malaysanay kelmadda hadalkiisii kasoo baxayo hadallo yaro qarmuun ah marka cabdixaafido horta anigu hodan ahaan aniga aabbahay wuxuu igu soo koriyey cabdixaafido inuu maaragtay kelmaddanay soomaalidu isticmaasho halkanaan caawa ka sheegaya kelmaddan soomaalidu isticmaasho midgaanka ay yidhaahdaan cabdixaafido walaal aabbahay ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyeen wuxuu igu soo koriyey qofka maaragtay walaal midgaan waxa ah buu yidhi hodanay ama aabba annaga dhanba dee noo sheego nagu soo koriyey kelmadda midgaan markaad maqashaan buu yidhi midgaan waxa ah buu yidhi ninka uskaga ah shaksiga uskaga ah dadka isku dira ummadda daba socda xaasidka tuugga ninka dabeecadda xun ilaahay cabsidiisa ku yar tahay marka waxa idinka wanaagsan buu aabbahay yidhi ilaahay naxariistana ka waraabiyo qofkii ilaahay xaggiisa idinka dhow baa idinka wanaagsan taasaan aaminsanaa oonan ilaa maantana aaminsanoon habeenna ku seexan nafar soomaali ah ayaa in yaroo intaa la eg kaa sarreeya ama kaa wanaagsan aanan ku seexan maantada aan kula hadlay xilliga aan kula hadlay waxay la noqotay marka wax weyn bay la noqotay xamartii aan ku dhashay xamartii aan joogay intaanan yurub iman aan dee noloshii reerkaygii kulligooda joogeen oo maanta la iigu hanjabay yani inaanan lahayn waxay la noqotay wax aad iyo aad iyo aad iyo aad u weyn oo maanta fanka marka la eego inta badan cabdixaafidahuna waan hakadaa anu inta badan waan ka yar hakadaa marka waxyaabo badan baan uga hakadaa laakiin taasi waxay mar walba i hor timaadaa
ugu horeysa ka hakashada aan ka hakanayo fanka markaan taa xasuusto kale marka dee sidaas markaa walaalkay ilaahay ha dhowraha xafido walaalkay Cabdullaahi Wiish ilaahay ha ii daaye oo shakhsi wanaagsan oo jecelahay ayaa markaan u sheegan ku yiri nimankii aad ogeyd sidii ii bariyay sidii ahaa taasaa dhacday kana dhacday way aan qaracmide ayuu markaa walaalo Wiish ilaahay khayr siiye taabid ugu soo xiray taabid baa sidii markaa iyo Allah u naxariistay awil ilaahay naxariis janna ka waraabiyo iyo walaalkii Cabdullaahi markaa sidii buu taabidna markaa garabkayga soo istaagay marka waxyaabihii iigu yaabka badnaa taasay ahayd walaalna hodanay waxaa muhiim waana cafiye baa jiro hadal weyn oo mugla weeye waxayna tusaysaa qofkaa tahay iyo gurigaa kusoo barbaartay bay tusinaysaa shakhsigaas erayadaas ku yiri 3 milyan ee Soomaaliyeed muqdisho ku nool sharaftii karaamada la dabcan ma matalo waa qof asagoo fikirkiisa ka hadlayay waxaan magacooda u qarinayna fariintaanu markay gaarto inay ayagu maskaxiyan iyo qalbi ahaan isku saxaan ayaan jecelnahay oo marab maaragtay aan halkan ka dhagaxayno waana saad u sheegtay qoyska aad ka dhalatay gaar ahaan reer Cumar Dhuule Cali oo Soomaalida oo dhan baa taqaano meesha hadda tagtaan qof kastoo Soomaali wiin istaagaya sharaf aabaha oo lahaa weeye ehelkiina iyo qoyskiina ay leeyihiin dadka Soomaalidaanu inay ka waantoobaan haybsooca iyo faquuqa iyo qoyskan iyo qoyskaas iyo geedka jiridiisa la iskuma haysto oo dadka Soomaalida inay yihiin qoys qura oo walaalaha ul iyo diirkeeda waxaa kaa muuqata haybad iyo sharaf iyo qurux aabaha iyo hooyada ka dhaxashay horey baan u socon ku leenahay waa kugu faraxsanahay 100% cid kaa fiican ma jirto hodanay haddii aan ka soo tagno intaa yartaa ee dhacday Cabdullaahi Wiish iyo saaxiib keliya lama ahana walaalo aan nahay xaqiiqatan walaalkay Thaabit Cabdi iyo dadkii la midka ahaa istaagay weeye dadka Muqdisho maaragtay matali kara iyo inta kale dadka Soomaaliyeed wanaagga jecel haddii aan arrintaa kasoo tagno haddaan eegtid fanaaniintii hore ee aabaha uu ka mid ahaa iyo kuwa maanta jooga adigu aad ka mid tahay maxaad is leedahay way ku kala duwan yihiin ama way isaga eg yihiin ama inay isaga ekaadaan bay ku habboon tahay inta aanan u gelinin adigoo yaroo Jarmalka yimid oo jacayl digada kaa dhigay xaafidow huno fanaaniintii hore iyo fanaaniinta maanta waxay isu jiraan intay cirka iyo dhulku isku jiro waayo anigu waxaan kusoo agkoray oo ku ag dhashoon kusoo agkoray fanaaniin dad isjecel oo ma garanaysaa is-ixtiraama kala dambeeya ka khaldan lagu sheegayo xini jirin xumaani jirin isgacan qabta oo maaragtay dhinac walba iskala qabta dambiisha walaalo oo walaalo ilaahay oo ma garanaysaa anigu maanta haddii la yiraahdo xudaydi waayo waxaan leeyahay xudaydi waa adeerkay alla yaa raxma walaalo haddii la yiraahdo walaalo guduud carway waayo guduud carway waa eedada ilaahay naxariistana ka waraabiyo yacni kulligooda dhan aan u aqaanay inay eedaday iyo adeerkay ahaayeen dad isjecel bay ahayn laakiin kuwan maanta aniga waxaan hadaarna waan kugu yidhi walaalo fanka waan ka yara hakadaa inta badan waxyaabaha aan uga hakado oo arrintii aan kuu sheegayay ay ugu horreysay ayaa haddana waxay ka mid tahay kuwan maanta markaan arko dhaqankooda iyagoo isjiijiidaya markaan miidiyaha arko laba fanaano intay isu soo fadhiisteen isku jawaabaya walaal anigu waan ka xanuunsadaa madaxa aad ii xanuuna ma garanayo waxay tahay waan ka danqadaa yacni waayo waxaan jeclaan lahaa inay maanta walaal fanaaniintu waa hal famil weeye waa hal qabiil waa hal qabiil waa hal famil ma garanaysaa walaal marka inay kala dambeeyaan oo midku ka horeeyo oo ka dambeeyo oo kor u soo qaado ka horeeyana kii dambeeyo inuu kii ka horeeyay ixtiraamo is astraano carab iyo laba daan baa isku xiga way isqaniinaan
laakiin hadday xitaa ay wax kala tabsanayaan oo isku dhacaan xitaa inaanay bulshadii u keenin bulshadii waxa weeyaan waa dad weliba especially Soomaalida maanta waxay u baahan yihiin si maaragtay fanaaniintu haddii ay qolo iyo xin iyo dagaal bulshadii walaal xitaa hadday jid qaladan ku dhacaan xitaa lama iyagiyo saa isku wax ma hagaajin karaan soo moogdala marka inay maaragtay iyagu hadday wax ka dhex dhacaan xitaa dhexdooda qarsadaan iscafiyaan raali geliyaan ka khaldanka kala qabto ta khaldanta kala qabato ayaan anigu jeclaan lahaa hodan ahaan oo ma garanaysaa inta aan la hadlayna way ogyihiin kolay toole ayaan arrintaa kala hadlay waxyaabaha iigu weyn marka saasay inaan fanka ka hakada markaan arko markaan israado allayle haddaan hees soo saaraya unbaa waxaan arkaa laba la kala hayo ama laba isu soo fadhiis markaasaan hayo ay ka noqoto dib u yaraha ka yara nastaka yaraha ka hodanay bal ha kala nastaan marka walaal fanaaniintii hore waa waxaan la heli karin 100% mana isu dhawa mana isgaaraan dhaqan hadday noqoto dabeecad hadday noqoto يعني شغل اسكم لها شغل أنا قلت هيدا وين شغل اسكم لها ولا وقرتي waxaan jecelahay markaan inaan adiga kugu soo yara dhaweeyo dalkii laga soo tag adigoo gabar yara weliba waad yartahay baan maasha Allah waxa soo gashay dalka Jarmalka dabadeedna haddii dhalinyaro leeyahay xasaawe iyo shukaansi mar walba waa la arkayaa nin dhalinyara oo muslim oo Axmed la yiraahdo ayaa ifka isugu jeclaydeen ninka jacaylkiisu soo ku bilowday ballooshe wiilka yara cad laga reebi waayay iyo gabadha yara quruxda badan ee sale bal ka waran walaal ayaa caawiya ka soo qaadaa in dad jeclaaday anu awlaad jacayl baan xaafido anu awlaad jacayl horta saa u ogsoono laba qof oo jecel baa sakay dhalay ma garanaysaa marka kuwa aabi jacaylka ma garanaysaa marka jacaylkii un baan halkii kasii qaadayoon guursadayo alxamdulilahi rabbil caalamiin 4 caruur ilaahay ayuu isiiyey ilaahay 4 caruur u siiyey maanta un haystaa 4 caruur alxamdulilahi rabbil caalamiin wanaag iyo sharaf baan naga dhaxaysa hooyo waxaan ahay kaliyeeda waa caruur haysata marka waa ka waa gartay dabcan waa dul martay laakiin jacaylku labada qof dayn maayo waxaad ku qoslayso koogahay jacaylku labada qof buu marka hore ka yimaada dabeedna kan kale lagu tallaalaa ma adigu kaa hor yimid mise ninka odaygaa wato kula yimid abaabku haysta caawa xaafidow waxaad ka soo qaadan adigu gabadh awlaad jacayl ahayd oo ka soo adaa ku muday marka irbada adaa watay kuma mudino marka alxamdulilah aduu walaal maasha Allah tabaarakallah walaal ma garanaysaa si qurux badan bay wax u dhaceen kale anu laakiin waxa weeye waxaan hayaa sheekadoo dhan baan hayaa waxaa la yiri dabaaldegii ka dhacay iyo bulshada Soomaaliyeed say u soo dhaweysay wiilka muslimka iyo gabadha Soomaaliyeed magac iyo maqaamka kule ummadda Soomaaliyeed reerka ka dhalatay waa la socdaa 4 ciyaar oo qurux badan buu Ilaahay ka siiyey ama idin wada siiyey Allah ku barakeeyo waxa laga sheekeyn karo maahan waxaan kaloo jeclaan lahaa inaan wax kaa weydiiyo arrintan jacaylka saan hal mar uga baxno hadda waayahan waxa weeye carmal baad ahayd hadda geel baan rabnaa inaan kaa qaadan maxaa soo wadaa hooyaan hayana haddaad hooyo tahay hooyada samaysato maya anu waxaanay hooyo caruurteedii go'day oo caruurteeda korsanaysa wixii ilaahay qoray ilaahay keenaya waa gooni laakiin waxba kuma jiro ma yihi dumarka fadhigaaga ku sugita waa gartay waxa weeye annagu haddaan nahay reer cumar dhuule halkaan waxaa u fadhinaa geel iyo farda inaan kaa qaadano marka ama fadhi ama ha fadhina hawl kuu taalla weeye haddaad bixi weydo mid baan kuu soo diraynaa insha allah insha allah gabagabadii ayaanu ku siqanaynaa waxaan rabaa inaan su-aashan kusoo gabagabayno inta badan waxaan jecelnahay barnaamijyadan dadka caanka aan ku wareysanayno inaan kusoo gabagabayno farxad
wixii kuugu farxadda badnaa ee soo mara hodan cumar dhuulaay markaad dib taariikhda u eegtid oo aad tiraahda alleeleh arrintaasu wax la mid ahaa ma jirto adeeray bal nooga dhac waxay ahayd markaan gabadhaydan curad aan dhalay noora yar markaan dhalay ayay maalintii noloshayda iigu farxadda badnayd ay ahayd cabdixaafidow anoo hooyo aabbo intaa kasoo maqnaa uu markaan tayar dhalayayna aan ahaa magaranaysaa gabadh aad iyo aad aan maaragtay alxamdulilah rabbilcaalamiin ayay farxaddan farxay yacni lagama sheekayn karo lagamaba sheekayn karo marka maalintii ugu farxadda badnayd maalinta inantayda curad dhalay walaal maasha allah waxa weeye magacaad u bixisay waa ka garanaysaa nuuraa loo bixiyey waa iftiin waa ubax farxaddaas waa dareemi karaa aabbaan ahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu kulligood kuu xifdiyo insha allahu tacaala ugu dambayntii hodanay maxaad jeceshahay inaad ku tidhaahdid bulshada soomaaliyeed sharfan ku daawan doonto haddii la yidhaahdo horta waan wada salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay afarta banjood kala joogaan ilaahayna ha ku xafido meel walbay joogaan waxaan soomaali odhanayaa oon u sheegayaa horta soomaali waa mid anigu waa saan u aqaano say doonaan dadka ho kala qaadaan quruxdayduna waxay ku jirtaa markay dadkaygu soomaali meel kasoo wada jeestaan ama ma garanaysaa ay isgacan qabtaan soomaali waxaan odhanayaa intaad iska daysaan qabiilka iyo ma garanaysaa iyo xumaantan iyo inta yare xumaanta wadda maba dadku isku wada mid maaha inta yare xumaanta wadda hala qabto oo ma garanaysaa hala iska qabto wanaagana hala badiyo marba keena dhibka marba keena dhibaataysan keena waxaysta ha saacido oo ma garanaysaa xumaantana hala iska daayo especially weliba waxaan u mahad celinayaa dadkii walaalahay ahaa ee soomaaliyeed ee shalay toole sida wanaagsan uga dhiibtay fikradoodii arrintii ninkii soomaaliyeed ee qaldamay yacni aabba afka la soo galay walaashay farxiyo kaba yare iyadana thank you baan leeyahay walaal qaali waa walaashay lexmiyan jeclahay kulligood waxaan leeyahay waan idin wada salaamaya soomaaliyey aynu noqono ummad walaalo ah oo hal meel kasoo wada jeesata oo ma garanaysaa waqtiga adduunyadu waa iska gebagebo nin walba qabrigaa 2 mitir ayaa sugaya walaal soomaa xaafido walaal marka waxa weeye aynu hal meel kasoo wada jeesano ilaahay xasuusano ka aan xitaa xasuusnayn ilaahay aynu xasuusino ma garanaysaa marka waxaan leeyahay xumaanku haydin wada xafida dhammaantiin walaalayaal wanaaga eega oo qabiilka iska daaya oo xumaanta iska daaya insha allah jannada inoo wada balan hagaag insha allah ilaahay iskuingeeya aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa sida hufan walaaltinimada leh ee aad waqtigaaga qaaliga noo siisay ummadda soomaaliyeedna aad maaragtay ola wadaagtay fikirkaagii ra'yigaaga walaal qaali ah sharaf badan baa tahay aad iyo aad u jecelnahay allah ku karaameeyo intaas ayaan jecelayo daawadayaal waxa uu ahaa waraysi aan oola yeelanaynay hodan cumar dhuule oo aad taqaanaan aabbaheed iyo ehelkooda oo dhan dadkaas soomaaliyada sharafta lah taariikhda kule ummadda soomaaliyeed qoyskaa sharfan ayay ahayd oo aanu rabnay inay aabbaheedna waxay ku xasuusato noo sheegto ayadana xoogaa yara aan ka barano waxaana jecelahay xoogaa yaro aanan ka oqoonin inaanu ka baranay laakiin mar raba cadaalad uma samayn karno inaan soo koobno lejankaas iyo taariikhdiisii laakiin waqtigoona eryanaya awgeed iyo hodanoo subaxii ayaduna kala haysa ayaan intaa kusoo koobnay hodan markaa aragtaan weydiiya markay yarayda jacaylku jahwareeriyay jarmalka ay joogtay sheeko badan ba idinkaga dhacaysaa waxaan jecelahay inaan u mahad celiyo gudoomiye hore gobolka banaadir thaabit cabdi hufnaan sharaf iyo karaaman kugu aqaanaa gudoomiye hore u soco inta dadka adigoo kale ay ku jiraan bulshadeena soomaaliyeed rajo fiican baanu leenahay insha allahu tacaala iyo qaar kaloo fara badan sidoo kale waxaan jeclaan u mahad celiyo walaalkay cabdullaahi wiish iyo weliba marwadiisa koowaad deeqo salaan baan kuu saaray walaashay guulayso
dad ahlu sharaf way labada ruux aad baan u jeclahay allah kalaamay waxaan kaloo jeclahay inaan u mahad celiyo walaalkay injineer wariye cabdifataax cali shiruuc oo barnaamijka nagala qayb qaadanayay aad baan idinku mahad celinaynaa intaas ayaan jeclaan kusoo kooba anigoo cabdixafiid maxamuud jaamac ayaa idinla socodsiinayay guul iyo gobonnimo mahadsantiin